markasta waxaa maqashaan dadaa la xasuuqay haddaba dadka hadda la xasuuqay cid hadal hayse ma lahan idhagaysta waxaa la xasuuqay dadka rafiijiga lagu magacaabo oo qaxootiga ah qofka xasuuqana waxaa waaye madaxweynaha Trump ee madaxweynaha Mareykanka soo marka maxaa la dhahayaa xasuuqitaankan yani dadka qaxootiga dad u dooda ma qabaan miya afhayeen ma qabaan miya cid difaacda ma qabaan miya oo UN-ka aanan ahayn UN-ka waa tuugo waa yani xag jir haloogeeya haddii la rabo cid aan aniga maanta aan hadal aan oga gabanayo malahan soo marka يعني dad kale oo u dooda dadka qaxootiga ama America ha joogaan ama meel kale ha joogaan qaxootiga cid u dooda ma lahan miya dhibaatadan maanta dadka qaxootiga ku dhacday masiibadan ku dhacday masiibo wax ay dhaanta ma lahan yani subxaanaka ya cadiim dada qalbiyada inay istaageen laga yaaba dada waxa laga yaaba maxal dhahay xanuun inuu ku soo booday dada laga yaaba dhaqtar inay jiifaan dada laga yaaba maxal dhahay subxaanallah yani xaalado duruufo inay iska jeexjeexeen soo marka dadkan dad u dooda oo maxal dhahay oo yani qaniisiinta dad u dooday qabaanay arrimaha kale adduunyada ka dhacay dad u doodanay qabaanay dadkan dad u dooda ma lahan miya oo UN-ka aanan ahayn ilaa UN-ka waa shirkadana maxal dhahay waa contract ay dadka ku qaadanayso maanta dana ugu jirto qaxootiga baaqda hadii la dhaho UNHCR soo marka dad kale oo u dooda malaha miya su'aashan waxa weydiinaya Soomaaliha dadkiina yani community oo Soomaali oo qaxootiga qaabilsan malahan miya waay qaxootiga loo hadalhayn la yahay waay arintooda looga danqal la yahay war masiibooyinka kale waa sheegtaan oo aan naadisan wardada maanta ee barrada laga soo celiyay sababta looga hadli la yahay maxay tahay aniga hadda waxaan ka mid ahay dadka falayga yani rajaynayay aan ka mid ahay yani waxiga alxamdulillah yani gabagaba ay ahaayeen rajaan lahaa Trump intaana la dooranina aniga rajo ma lahayn maanta waxaaba ila ii qaatayba rajadan alxamdulillah kulley maxal dhahaa inuu ilaahay nasri keena laga yaabaa soo marrab inaan sii gafo laakiin waxaa u baahanahay dad u dooda qaxootiga u baahanahay haddii ay jiraan dad qaxootiga u dooda ama maxal dhahay community nooc kasta ha noqdaan ama Soomaali gaar ha noqdaan ama Soomaali muslim ha noqdaan aniga Soomaaliya ii tahay ha ila soo xariiraan degdeg ha igula soo xariiraano arrintan arrin aniga aan ka aamusi kara ma ahan mana ka aamusayay dhibaatadan maxal dhahay oo Trump oo qaxootiga kula kacay soo maxal dhahay marka insha Allah inta sidii kaga tagaya videogan wallahi yani illa ay xalay yani koomana kuma jirin yani wax Allah waxaan ku gartay garan waa aniga dhan qof bini aadanka maxal dhahay wuxuu safilaynin haduu ku dhaco waxa waa alxamdulillah hadaa miirkayga taam yahay maanta hadaan waalanin ama xanuun oo qatar uusan igu soo boodin ilaaha mahad iskale horta Trump ilaahaygi abuurtay oo anagana abuuray horta naga qaban karo in ilaahay naga qabto oo nasriga oo Falastiin u soo dejiyo oo qaxootigan ilaahay u soo dejiyo Trump isagoo qaxootiga oo Falastiin u dhaaranayo masiibo ku dhacday maxal dhaha ilaahay ha naga qabto wuxuu ku mashquulan Allah ku imtixaano ku uu tarxiilay in ilaahay ka qabto laakiin waxa u baahanahay dad u dooda qaxootiga bilis qaxootiga in loo kaco waaye dadka qaxootiga waa ina loo kacaa waa ina la garab qabtaa waa ina waxaan ku dhahay arrimahooda laga doodaa war arrimahooda xitaa maanta da social media aad uga dheedisaan oo dhahdaan ma aqbalayna qaxootiga wax lagu samaynayo يعني سيدا هذا تيك توك محل لها لو سو هرجيست إن تيك توك محل لها إلا كنسلين سو هدي ما أنت محل لها أو أرنت قحوتيك الواقعه أنا وح أوجها إنه ترى محل لها هذا كان كلا بنايو أم وحن أي إسبدل عيان لكن شب من أنفعه هدان هاي غير رفيجي سو مرك قحوتي أدين كان إسكيجية تد انتياتهين تد اسكو حرن متهين وحما قبستين كوميونيتي ملهدين إسكيجية أو أنا قاعدين دوضايا إسراعة الصراعة أو محاكولة فلوق محلها بقول كون إجارسية أما لو بقول كون قحوتكم منارته ملايين ملك استبوحلين ملايين يقطورة 1 مليون بلان waxa idin kaga qaada inaan arrimihiinan aan ka aamusaynin oo meel Allah meeshi oo wax looga helaayo ama wax looga soo dhicin kara aan lugta saara aniga hadda safaaradda Mareykanka u socda mana aqbalay waa ina jawaab adag aan ka bixiya Soomaaliya waxa idin ka codsanaya garab Soomaalidiina muslimka ah oo aniga aan ka koow ahay qof muslim aan ahay garab qabta kuwa gaalada naftirkoodana hay soo garab qabtaan Soomaali nooc kasta ee noqoto xitaa kuwa shiicada kama deyrina aniga Soomaali oo dhan garab uga baahana isoo garab qabta